salaamada wadayaal halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada taminteena qodobada ugu waaweyn waxa qaybka qaramada madoobe warka soo saartay heshiiska cusub ee golaha wadatashiga qaranka baaqna u dirtay dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya qaar kamida mucaaradka Soomaaliya oo dhaliilo xoogan u soo jeediyay golaha wadatashiga qaranka kadib soo jeedinta in ciidamo cusub oo AMISOM la geeyo fiila Soomaaliya maamulka galmudug oo faahfaahin ka bixiya dagaal qasaare geysta oo ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Galgaduud oo saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda ee Al-Shabaab ay ku dileen iyo saraakiisha ciidamada Puntland oo amar cusub la duldhigay qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahineynaa tabinteena u diyaar garooba daawadayaal markale kulan wacan oo wanaagsan waa 10ka bisha January sanadka 2021 waxaad ku soo dhawaataan qodobadeed maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno hadii aynu ku bilowno qaramada madoobe ayaa war ka soo saartay heshiiska cusub ee golaha wadatashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka ay ka gaareen dhawaan war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada madoobe ee Soomaaliya ayaa waxa looga hadlay heshiiska cusub ee shalay magaalada Muqdisho ay ku gaareen golaha wadatashiga qaranka oo ay go'aano ka soo saareen xaaladaha dalka iyo arrimaha doorashooyinka qaramada madoobe ayaa bogaadisay qodobada ay soo saareen ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kadib shirkoodii Muqdisho qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada madoobe ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay muhiim tahay in la helo natiijo la aamini karo marka la gaaro waqtiga cusub ee la qabtay si loo soo gabagabeeyo doorashada xubnaha golaha shacabka ee Soomaaliya qaramada madoobe waxay aaminsan tahay in mudnaanta hadda la leeyahay ay tahay fulinta go'aanada si loo gaaro natiijo la aamini karo waqtiga cusub ee la qabtay ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada madoobe ee Soomaaliya waxa sidoo kale qaramada madoobe ay shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in hogaamiyaasha Soomaalida ay si wadaan wada shaqayntooda isla markaana ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara khilaaf hor leh ama ka sii dari kara xiisadda xilligan dalka ka taagan qaramada madoobe oo si dhow la socoto xaaladda cakiran ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaya hadalkeeda iyadoo Muqdisho shalay lagu soo xiray shirka golaha wadatashiga qaranka ee lagu go'aaminayay in doorashada lagu soo gabagabeeyo muddo 40 cisho gudahood si kastaba Soomaaliya ayaa ku daahday xaalad kala guur ah oo ka dhalatay muranka doorashada oo muddo sanad ka badan dib u dhacay sababtay waqtigii loo qorsheeyay doorashada in lagu soo gabagabeeyo dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ayaana khilaafkooda marba marka ka dambeeya ka sii daraysa iyadoona dhinacyada loogu baaqayo in la qaato qofka saabadoorkiisa ku aadan sidii dalka xasiloonid lagu horseedi lahaa doorasho hufan oo xor iyo xalaalan uga qabsoomi lahayd qaar kamida mucaaradka Soomaaliya ayaa dhaliilay in loo dhiibo xilligan ama lagu soo biiriyo ciidanka AMISOM ee madaxtooyada Soomaaliya General Turyare ayaa aad u dhaliilay in xilligan amniga lagu xoojiyo madaxtooyada ciidanka socda AMISOM taliyihii hore ee nabadsugidda Soomaaliya General Turyare ayaa ku tilmaamay nasiib darro weyn in xilligan madaxtooyada Soomaaliya la kala dhaxdhiga ciidamadii Soomaaliyeed kuwa ka socda nabad ilaalinta midowga Afrika Turyare ayaa waraysi u bixiyay waxa uu ku sheegay in waxyaabo badan oo markii hore la dhibsanaya xal looga gaaray shirkii lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho General Turyare waxa uu sheegay in xukuumadda looga fadhiyo si wadida dardargelinta doorashooyinka iyo habsami u socodka waxa uu soo bandhigay sumcad dil iyo ceebna uu sheegay inay ku tahay kana dhalan karta arinta ciidamada AMISOM ee lagu baaqay in la xoojiyaan amniga madaxtooyada Soomaaliya si loo ilaaliyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo kan madaxweynaha Cabdiraxmaan Turyare agaasimihii hore ee hay'adda NISA ayaana kursiga u tartamayay waxa hore lagu boobay 67 Yaasiin Farey agaasimaha kusimaha hay'adda NISA Turyare waxa ugu baaqay madaxweynaha mudxuleedkiisa dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble inay ka fakaraan danta iyo sidoo kale mustaqbalka Soomaaliyeed iyagoo qof kastaba tiisa gaarka u saneegayn maamulka galmudug ayaa faahfaahin ka bixiya dagaal qasaare geysta oo dhaxmaray ciidanka dawladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab kaas oo lagu diray saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya shalay dagaal weerar ku bilowday oo Al-Shabaab iyo ciidanka dawladda Soomaaliya ku dhaxmaray deegaanka Cadakibir ee gobolka Galgaduud waxa ka dhashay qasaare kala duwan kaas oo dhimasho iyo dhaawac sababay ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay waxa dagaaladaasi ku dhintay taliyihii guutada 13aad ee qaybta 12aad gaashaan la dhexe Cali Maxamed Cagaweyne iyo sidoo kale gaashaan la sare Cabdulqaadir Maxamed Gazaawe oo ahaa taliyihii howlgelinta qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka iyo 3 askari oo kale sidoo kale sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka Al-Shabaab ayaa dagaalka shalay waxa looga dilay ilaa 7 xubnood halka dhaawac inta ka badan la gaarsiiyay sida aynu xogta ku helnay ciidamo ka socda kuwa galmudug iyo dawladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaana shalay dagaal culus ku dhaxmaray deegaanka Cadakibir koonfurta gobolka Galgaduud
dhinaca kale wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shiraf Falagle oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalka ciidamada dowladda iyo al-shabaab ku dhexmaray qaybo kamid ah gobolka Galgaduud. Falagle ayaa marka hore kaga tacsiyay dadka Soomaaliyeed si gaar ah shacabka Galmudug saraakiisha ku dhimatay dagaalkaasi isagoona sheegay in ciidanka dowladda ay guul ka gaareen dagaalka ay la galeen al-shabaab waa sida xusay. Axmed Shiraf Falagle waxa uu sheegay in ciidamada federaalka iyo kuwa daraawiishta Galmudug oo wadajir u wada howlgalkaasi ka dhanka al-shabaab isla markaana ay ka wada shaqeynayeen xoojinta nabadda balse loo galay wadada waa sida xusay. Axmed Shiraf waxa uu sheegay in ay socdaan haatan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ku aadan sida al-shabaab deegaanada Galmudug ay kaga sugan yihiin looga saari lahaa isla markaana deegaanada Galmudug ka maqan mar kale gacantooda looga xoreyn lahaa. Axmed Shiraf Falagle wasiirka warfaafinta Galmudug sidoo kale waxa uu ka hadlay isku dhacyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya booliska iyo Gorgor maalmihii dambe ku dhexmaraya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guraceel. Falagle waxa uu sheegay in taasi cid kasta oo ku lug yeelato ay tilaabo ka qaadi doonaan haatan kadibna ay soo noqon doonaan sidoo xusay. waxaana shalay magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud ka dhacay dagaal xoogan oo khasaare geystay kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac sidoo kalena mas'uuliyiin ka tirsan oo xildhibaano ay ka mid yihiin ee Galmudug waxyeello xoogan oo dhaawac ay ka soo gaareen. al-shabaab waxay dhankooda weerar maalmihii dambe ay kordhiyeen ay ku qaadayaan deegaanada Galmudug iyadoona maalmo ka hor ahayd markii magaalada baxday ee gobolka Galgaduud ay weerar ku qaadeen balse iska caawin xoogan ay kala kulmeen shacabka halkaas ku dhaqan. ugu dambeyntiina ciidamada ka howlgala madaxtooyada Puntland iyo qaybaha kale ee ciidanka maamulkaasi ayaa dignoon culus loo diray. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa si adag ula hadlay ciidamada madaxtooyada Puntland ee ku sugan Garowe iyo sidoo kale ciidamada kale ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi. Karaash waxa uu yiri waxaad huguntiin sharaftii ciidamada Puntland maadaama aad ka howlgashaan xaruntii laga hayay dowladnimada sida daraadeed waxa loo baahan yahay inaad ka dheeraataan wax kasta oo dhaawici kara sharaftiina. cidii lagu helo wax ka baxsan xaydaabka ciidamnimo waxaan ka qaadaynaa tilaabo sharciga ku haboon. tilaabadan ayaa ku soo aadaysa xilli ciidamada qaarkood sida aynu xogta ka helnay askarta ka howlgasha madaxtooyada Puntland ay beel isugu safteen oo keentay arrintii Boosaaso inay saameyn ku yeelatay dagaaladii ka dhacay bishii hore halkaasi. madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa ciidamada kale ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi ugu baaqay inay ka shaqeeyaan mas'uuliyadda ka saaran sugitaanka amniga iyo badbaadinta shacabka loona baahnayn in xilligan iyagoo ah ciidamo maamul inaysan hab qabiil dagaal ah aysan ka qayb galin ama iyaga aysan ku dagaalamin. dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxa ka dhashay khasaare kala duwan waxayna taasi sababtay in ciidamada hayb ahaan ay uga qayb galaan dagaalkaasi iyo sida ay isugu dhow yihiin. madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaana tilaabadaasi uga digay ciidamada cidii ku lug yeelatana uu sheegay in sharci adag ay la tiigsan doonaan. inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamij wareedkeena aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News mid lamida intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa saaxiibayaal in nabadgelyo.